والله برمدن عادية ما مدحوينها الصومالية أيا تصي معارض كصوماليا إن أنا وحبا لجوجين وحانا ودلك ودقاجي دور شقة في عدا حسن شيخ محمود وحا أمانتا فرها دكتي إسلا مركانا قاتي ديوان جلنتا كاركا لغو بحيو doorashada qof iyo cod loogu diyaar garoobay madaxweynaha Soomaaliya ayaa tagay degmada warta nabadda waxaana halkaasi uu iskaga diiwaan galiyay muwaadin ahaantiisa iyo sida uu berito u rabo inuu codkiisa isaga xitaa ku cilbo asaga isku codeeyo ama qof kale ha u codeeyo laakiin wuxuu rabaa dalka inuu aado wada la yiraahdo doorasho qof iyo cod mucaaradka Soomaaliya oo dood badan ka qaba diidan maalmahanba dhahaayay ma soconayso oo looma diyaar garoobin xilligan lama joogo waqtigeeda wiishka ayaa ku yeeray waaga ayaa ku bariyay maalmo ka hor xasan sheekh ayay la fadhiyeen fil Soomaaliya si ay uga dhaadhiciyaan inuu ka tanaasulo qodobadii la isku hayay ee dastuuriga ahaa ee madaxweynaha lagu soo oogay ama lagu soo eedeeyay in wax ka bedelay xasan sheekh meesha uu taagan yahay waa cadeystay wadankan ma u rabo leeyahay aniga odayaal dhaqameed wax soo xulaaya iyo baarlamaan dhaxkatuur wax ku qaadanaya iyo siyaasiyiin silsilad oo kala maanta iskaga dab wareegsanaya wadankan wuxuu leeyahay dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin codkooda inay ku cilbaxaan waxa maangaab ah qofka diidaya maanta doorasho qof iyo cod inuu dalka aado qofka aqoonyahanka ay ka soo horjeeda doorasho qof iyo cod inuu dalka ka dhacdana wallahi qof la dhigi kara aqoonyahan waay ma adduunkana la midka dadka codkooda ayay wax ku yihiin canshuurta qofka xitaa waa ku dhiirna inuu bixiyo dal jaceelka waxaan tiray ee dalal kale aan u maalgashaneen wax kala ma waa inaynan cod lahayn xasan wuxuu rabaa inuu taas dadka tuso in qofka uu cod yeelo karo isagoo mucaaradka qayladiisii maqlaaya culeyskoodii u jeeda cadaadiskoodii arkaya waraaqadahoodii og inay soo saarayaan xasan uma joojin marwa fertility center waa xarun caafimaad oo soo celisay farxadii iyo rajadii qoysas badan oo Soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ku dhawaa inay kala tagaan dhalmala'aan darteed halkan waxaa lagu daweeyaa dhalmala'aanta waxaa lagu dhisaa mustaqbal marwa waa furaha qoyskaaga barri soo booqo ama nagala soo xiriir taleefanada shaashada kaaga muuqda yiri aniga waa bixi doonaa laakiin muddaxileedkan aan joogo raad ayaan ka tagaa micna u sameyn doona jiilka soo socdo annaga waa nasii dhaafooyaa inaa fahantiin waa jiilka soo socda kale waa yaryarka hadda dhashay mustaqbal ay u baahan yihiin annaga naftigeenu inaan kula daarana u baahanna dawladnimo inteena soo aragtay waa yartahay intii hore u soo aragtay ee joogtana xasan sheekh jidka uu qaaday taageersan qof iyo cod muhiimadda uu leeyahay ayuu madaxweynaha qaatay mucaaradka Soomaaliya marka maxaa u xala mucaaradka Soomaaliya albaabada inay xirtaan oo ay waraaqada wifi soo saaraan mooyee wax kale lama joogaan awalba mucaaradka ugu xoogan ee Soomaaliya ka jiray xasan ayaa hormud u ahaan jiray xasanna madaxweynuhu noqday waxaana uu qaatay jid ka duwan jidkii shalay ay wax ku raadin jireen wuxuu istusay in dalkan 30 sano ka badan qaabkan uu yahay oo wax natiijo aan la gaarin siyaasiga mar dhiirasho waa mudan isku daygan uu qaaday odayga inuu ku guuleysto ka go'an in lagu taageerana waa mudanta waxa uu ka hadlooyo ma aha fiiri hadii hadda maanta uu dhigi lahaa qabiil ahaana wax lagu doorana ninkan waa la taageeri lahaa waan loo sacbin lahaa sida aan qabyaalada u jecelna awgeed laakiin maanta markuu taagan yahay war aniga doorasho qof iyo codahan dalka gelina ma ogtahay in kiniiniga Powermol uu yahay xanuun baabiye awood leh xalna waa xanuunada sida madax xanuunka lafa xanuunka dhabar xanuunka iyo kala goosyo xanuunka hadda waa xilligii aad xal u heli lahayd xanuunadaas Powermol waxaad ka heli kartaa Muqdisho iyo dhammaan gobollada dalka dhammaan xarumaha caafimaadka farmashiyaasha iyo goob kasta oo dawo lagu iibiyo dooro Powermol si aad u hesho nafis degdeg ah si aad u dalbato waxna marka shaashada kaaga muuqda Powermol hubka sirta ee xanuunka wadankan qof iyo cod mooyee wax kale aniga ma aqaan waa laga soo horjeeda qofka isku kalsoon ee siyaasi ah waxa laga doonayaa inuu codkiisa iyo dadka kasbashada uu ka haysto uu ku kalsoonaado lama qaba karo wax la ma fiir ilaahu shan tuule xitaa hadii laga qabto isku day bilawday waa berito waxa la gaara inta kale laakiin hadii la dhaho meeshii aan joognay intaas oo sano ka hor aan joogayna maxaa natiijo ah oo ku jira ma lahaay wax natiijo ah birmada hore u socon leenahay salaamu calaykum